ومشغول ويا قف كاس ومشغول ودي بقى قصة علينا الله مصدقنا معمولها وأمد علينا وقت ونلقاتي حتى لو حرمنا إنا جنرت جرينو إن ذهبك وحنوجوجا أملنا كبر waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oo noo janad gareeyo Cabdiraxmaan cilmi hagaafe si uu asagana u janad gareeyo waa mas'uuliyiinta la joogo kelmadiisana waa siinayna asaga gacantiisa ku janad gareenayo waxaana qofka gacantiisa ku janad gareen doonaa qofku guuleysan doona dahab yes okay ما شاء الله اوكي هاي قدوميها وتابر ربا وتابت بسم الله قف كان وحو كغولسن دونا قفكو استاجيو نصيبكيس كو استاجيو ذهب 10 غرام ايو كغولسن دونا قف كان معاملك وحو كغولسن دونا قدوميها غعنتيسا 10 غرام او ذهب طلو انت اهان واستاجيو قدوميها وحانا كغولستي فراشن 98 737 qofkaas ayaa ku guuleystay waan wici doonaa aan soo live aan ku jirnaa dadka waxaan ka codsanaynaa inay wicitaanka laga dhaafo mashquul ayuu noqonayaa telefoonadii 98 737 gudoomiyaha kelmadiisana ku dhaweynaa كلي وحنا ربنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم runtii shirkadda Samtel waxaan idin leeyahay hawsha aad wadiin waa hawl aad u muhiim ah runtii waa wax runtii ilaa hadda shirkad isgaarsiin oo arrinkan sameysay ilaa hadda lama sheegin insha Allah waxaan rajeey doonaa bulshada inay ka faa'iideysan doonaan idinka runtii ay idin noqon doonto arrin aad u muhiim ah dadkuna inay ku jeclaan doonaan customer fara badanna aad ku heli doontaan insha Allah ta'ala thank you ويا قدوميها قفكو السلام عليكم وعليكم السلام والله شركة Samtel waaye barnaamijka waxa laga soo wacaya ku shubo guuleyso waxaan rabnaa guuleysayaasha jamcadana ka mid noqotay inaad noo sheegtid magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ku sugan tahay يا والله وشركة إسكارتي Samtel waaye guuleysayaasha hadiyada lagu talagalay magacaaga saddexan iyo lambarkaaga waxaan sheegtaa iyo goobta joogtid Madiina degmada Madiina wuxuu joogaa Madiina ayuu joogaa ma sha Allah Madiina walaal magacaaga saddexan noo sheeg Maxamed Ibrahim Yusuf walaal Maxamed Ibrahim Yusuf waa shirkadda isgaarsiinta Samtel waxaa ku guuleysatay 10 garaam oo dahab ah shirkadda Imaaw shirkadda imaanaysa xafiiskeena Madiino waana lagu siin doonaa wixii hadiyada ku guuleystay kadib markii lagu hubiyo waa maasanta kale nasiibkaaga wuxuu noqday Madiino ay waa maasanta waayahay ya kale waayahay haddana waxaa loo tartami doonaa mobile Samsung waayahay maamula Axmed Ciise Xaaji aad iyo aad u mahadsan yahay aad iyo aad maamula hayga dheeraan bartaada ii taagnaaw waxaan soo dhaweynaynaa oo iminka nagu soo biiray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir marwo basmo caamir shakeeti aan leenahay marwo soo dhawow sidoo kale waxa inala jooga agaasimaha bilic soo celinta gobolka Banaadir ayaan soo dhaweynaynaa insha Allah mudane Sharma Arke waxaan leeyahay agaasima soo dhawow insha Allah hadal jeedintiisii waan siin doonaa waxaan sii wadanaynaa insha Allah ta'ala dadweynihii kala gidisnaa ee tartamayay waxaan jecelnahay
si ay u tartamaan oo ay tartanka qayb ugu noqdaan dad ka baxsan shirkadda insha allah inaan jaanis u siino oo ay noo sameeyaan nidaamka aan ku shaqaynayno oo ah star and the stop mar labaad waxaan jeclahay inaan fursadda siiyo aan u yeero ustaad axmed intaan marti sharafta inteeda kale aan jaanis siinin waayahay roobna waan hayaa midii saddexaad aan wareejin doonaa waxaan loo wareejin doonaa waxaan codsanaynaa martida dad ka mid a inay soo istaagaan si ay u generate gareeyaan martida dad ka mid a roobna waan hayaa
kubadiisu waa gaari koonfur galbeed eega 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 koonfur galbeed eega taariikh ma guuraana gobol lagu yaqaan dheeshaad jubbaland guddoonsiiya taariikh ma guuraana gobol lagu yaqaan dheeshaad jubbaland guddoonsiiya soomaaliyey guushu guushu gusha gusha waa gabi ahaanteena guushu gusha gusha goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo soomaaliyey guushu guushu gusha gusha waa gabi ahaanteena guushu gusha gusha goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo xidigaha garoonka leh sacab loo garaacay sacab loo garaacay hirshabeelle guulayso guulayso hirshabeelle guulayso gobonnimada hooygeeda yaan cidina gaadhayni koobkaba buntlandgeeya buntland buntland koobkaba buntlandgeeya koobkaba buntlandgeeya buntland buntland koobkaba buntlandgeeya soomaaliyey guushu guushu gusha gusha waa gabi ahaanteena guushu gusha gusha goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo dhulka geesiyaasha leh nibil inay ku goohaane biladaha galmudug siiya galmudug galmudug biladaha galmudug siiya galmudug galmudug biladaha galmudug siiya ilbaxnimada gurigeeda goboladu magaaraane mabaanaadir bahagoole mabaanaadir bahagoole mabaanaadir bahagool mabaanaadir bahagoole gool soomaaliyey guushu guushu gusha gusha waa gabi ahaanteena guushu gusha gusha goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo bayigiyo wax soo saarka kubadiisu waa gaari koonfur galbeed eega 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 koonfur galbeed eega taariikh ma guuraana gobol lagu yaqaan dheeshaad jubbaland guddoonsiiya taariikh ma guuraana gobol lagu yaqaan dheeshaad jubbaland guddoonsiiya soomaaliyey guushu guushu gusha gusha waa gabi ahaanteena guushu gusha gusha goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo soomaaliyey guushu guushu gusha gusha waa gabi ahaanteena guushu gusha gusha goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaaltooyo xidigaha garoonka leh sacab loo garaacay sacab loo garaacay hirshabeelle
koobkaba Puntland geeya Puntland koobkaba Puntland geeya Soomaaliyey guushu guushu guusha guusha waa gabi ahaanteena guushu guusha guusha goobaha ciyaaruna waa guri walaadooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaadooyo dhulka geesiyaasha leh libin inay ku goohaane biladaha galmudug siiya galmudug galmudug biladaha galmudug siiya galmudug galmudug biladaha galmudug siiya ilbaxnimada gurigeeda goboladu magaaraane mabaanaadir bahagoole mabaanaadir bahagoole mabaanaadir bahagool mabaanaadir bahagoole gool Soomaaliyey guushu guushu guusha guusha waa gabi ahaanteena guushu guusha guusha goobaha ciyaaruna waa guri walaadooyo goobaha ciyaaruna waa guri walaadooyo gayigiyo wax soo saarka kubadisu waa gaare koonfur galbeed eega 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 koonfur galbeed eega taariikh ma guuraana gobol lagu yaqaan meesha waa mashquulsan yahay waayahay kan labaad noo jaradgare kan labaad noo tajisgare waa taabatay guddoomiyaha waa taabtay qofkan wuxuu ku guulaysan doonaa dahab waxaa ka wadaa ii dahab oo kaasha $50 markay istaajiso ayuu noo istaagi doonaa okay qofkan kalena wuxuu ku guulaystay kaash waa furaha 5 eber 5 eber 2 eber 3 lambar isku totoosan qofka saddexaadna maadaama qasaalada soo baxday inuu ku guulaysto qofka saddexaadna waxa waaye isla ayadaa noo jirad garan doonto kadibna waxaan samayn doonaa qofkii ku guulaystay kii hore muxuu ku guulaystay mobile assalaamu calaykum waraxmatullah walaal shirkadda isgaarsiinta Somtel waaye barnaamijka ku shubo oo guulayso waxaa ka mid noqotay guulaystayaasha waxaan rabnaa inaad magacaaga iyo degmada iyo meesha joogto noo sheegtid walaal waa shirkadda isgaarsiinta Somtel waa walaal waa ka baxay qofkaas qadku ka baxay qofka saddexaad noo waxa qasaalad ayuu u tartamayaa qofkaas qofkii ku guulaysto qofkaas wuxuu ku guulaysan doonaa qasaalad okay qofkaas wuxuu ku guulaystay qasaalad waa 7 eber 8 83 58 saddexdaas qof ayay guddoomiyaha noo soo jirnad gareysay insha Allah kelmadeedaan ku xujinaynaa insha Allah soo dhawow
inta ay rasmiga ahay noo dambayso sharmaarka ma hormarinaa saasa fiicnaan lahay waaye waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha meeshaana waxaa yaallo bakti nasiib tijaabi nasiibkaaga waa dadka meeshaan joogo 3 qof ka xulo insha allah 3daas qof waa abaalmarinaynaa si gooni ah u abaalmarinaynaa guddoomiyaha si loo arko way raal lahaa halkaas ku daadiyaa dhulkan ku daadiyaa farsan karnaa waayahay halkaana ku daadinaynaa dadka meesha joogo waaye 3 qof ay soo bixiso ayaa abaalmarin doonaa dadka noo imaada ayaa u talagalnay barnaamijkaas qofkan waxaa waaye hore waa u wacan doonaa waa hibo maxamed sheekh macaane qof dadka guulaystayaasha ka mid ah tagaadar nasiib badana haye qofka labaad waa cabdiraxmaan cilmi hadaafow guulaystayaasha isagana ka mid ahaa subxaan allah haye haye qofka saddexaad calafka cajiib waa maanta kuwaas oo soo dhigteen qofkan lambaraa ugu qoran waa furaha 6 waaye 57 94 81 saddexaas oo abaalmarin doonaa waa maasan tahay guddoomiye noo fadhiiso thank you very much waayahay aad iyo aad waayahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda isgaarsiinta Somtel mudane Axmed Ciise Xaaji oo markaa inoo sameynayay ololaha tijaabi nasiibkaaga ama ku shubo oo guuleyso 10 kun oo hadiyadood macaamiisha maanta guuleysanaysay waxaan filayaa insha Allah dhowr macaamiil inay nasiibkooga tijaabiyeen isla mar ahaantaana dadka la abaalmarinayo ay qayb ka yihiin waan soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta kala gedisan ee nagu soo biirtay kuwa ka socda dawladda federaalka Soomaaliya ganacsatada ururada bulshada ururada dhalinyarada bahda warfidiyeenka guud ahaan inta u soo damaasha tagtay beerta nabadda oo barnaamijkeena qaybta ka ah waan wada bogaadinaynaa waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah nasiibkiina tijaabiya 3 qof ee marwo basma ee u xushay ee la abaalmarin doona iyana waxaan leenahay nasiib wacan aad iyo aad ayuu nasiibkiinu u wanaagsan yahay waxaan jecelahay bal iminka inaan soo dhaweeyo hortiina soo istaajiyo agaasimaha bilic soo celinta gobolka Banaadir mudane Sharmaarke Cadow maamul hadad maqlayso mudane Sharmaarke waxaan leeyahay soo dhawow sacabkii soo dhaweyntu waa xaqiina maadaama gobolka Banaadir aan ku qabanayna munaasabada bal dareenkiisa Sharmaarke iyo sidoo uu arko nidaamkan cusub ay Somtel ay soo kordhisay iyo 10 kun ay abaalmarinayso macaamiil soo dhawow gudoomiyaha wuxuu noo wareejinayaa hal xab lama isticmaalo gudoomiyaha wuxuu diyaargareynayaa laptop qofka guulaysan lahaa waa istaajiyey gudoomiyaha furaha 1 eber 4 55 41 qofkaas wuxuu ku guulaystay laptop qofka labaad asaga codsanayna oo firjeer ku guulaysan doono qofka labaad firjeer ayuu ku guulaysan doonaa waa socdaa nasiibkiisa iyo meeshuu joogaba dib ayaan ka wada wici doonaa maadaama waqti nahayo qofkaas ayaa ku guulaysan furaha 5 50 81 23 gudoomiyaha marka waxaan sameynaynaa ha ku darsado kelmadiisa waa maasan yahay labadaas qof ayuu noo tijaabiyey بسم الله الرحمن الرحيم دون الحيان كارما بوشرة يوحيدين تمام دولة بنادر دليرة الصوماليات كده من دولة بنادر دمان بعض الصحافة عليكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم سلام كديب ما أنت وحا فرحة نوع إن كسوق قلنا
goob lagu abaalmarinayo dad Soomaaliyeed oo ku guuleystay nasiibkooda iyo wixii ay ku heleen baqtiyo nasiibka guul iyo farxad ay noo tahay waxayna dhiirigelinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan iyo kuwa Soomaaliya guud ahaanba in wadankooda wax kasta ay ka heli karaan laguna dhiirigeli karo inay wadankooda joogaan halkii ay ka tahriibi lahaayeen oo ay qurbaha u aadi lahaayeen waxaysan ayaga shaqaysan inay helaan guul ay noo tahay farxad ay noo tahay kama gobol Banaadir ahaana waa soo dhaweynaynaa sida ay u dhiirigelinayso dadka Soomaaliyeed shirkadda Somtel mar kale waxaan kaga mahad celinayaa inaad maxaa la dhahaa dadka ku dhaqan gobolka Banaadir guuleystayaasha ugu badan ah in ay ku guuleysteen wixii ay maxaa la dhahaa waqtiyo nasiib ku heleen intaas kadib waxaan rabaa anagu ka faa'iideysanaya fursadda maanta aan idin helay halkan ah runtii waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed waxay isugu jiraan dad level kala duwan ah waxaa jira dad xilliyada aan ku jirno ee adag ee xagaaga ah dad uu saameynayo oo guryahooda ka barakacayo oo dhibaato badan ay gaarayso oo aanan haysanin hooy ay ka galaan roobkan annaga hadda aan ka wada gambanayno oo qof kasta uu jecel yahay inuu roobka dhibicdiisa iyo guuxiisa maqlo laakiin inuu ku kordo uusan jeclayn waxaa jira marka dad badan oo masaakiina oo aanan awoodin inay roobkaas meel ay ka galaan aanan haysanin ayaa laga yaabaa inay magaalada Muqdisho ku nool yihiin dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan jecelahay marka aanu ka faa'iideysanayo fursaddan inay dadkaas waxay awoodaan gaarsiiyaan garab istaagaan muujiyaana kuwa daaraha ku jiro in ay la mid yihiin dadka kale ee dhibaataysan waana ku faraxsanahay waana ogahay in dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan gobolka Banaadir dadka ku noolba inay yihiin dad isku gurmada sidaa darteed marka dadka masaakiinta ah ee aanan haysanin hooyga iyo gabaadka waa jecelahay in dhammaantiin aad garab istaagtiin gaar ahaan shirkadda Somtelna waxaan ka codsanayaa inay dadkaasi wixii awoodo oo karaankeeda ay gaarsiiso si dadkaasi ay u noqdaan dad Soomaaliyeed xaqna u leh inay ku noolaadaan magaaladooda nabada oo aysan wax dhibaato ku dareemin waa mahadsantiin waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir gudoomiye Basma soo dhawo meediyaha aada idin salaama inkastoo gacan ku hayntiisa ay culus tahay laakiin waxa culusaa gudbinaysiina ka muhiimsan waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamaa agaasimaha guud ee bilic soo celinta dowladda hoose ee xamar iyo gobolka Banaadir dhammaan mas'uuliyiinta Somtel dhammaan qof walbo munaasabadan quruxda badan ka soo qayb galay masabka oo ku fadhiyaan ku salaamaa أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام شرف أي تهاي إن أنا كسر قيب قالوا ما أنت مناسبة دانك هو رئيسي أن قيب كأها سو بندقي ده ما أنت إن أنا قولستي أشي كقولستي طبعاً كيكونوا قفوت مقالة ده مقدشة مسومالي ودان لوجو بندقي إن أول مرة ندي لسينا أن قيب كأها هذا مرقاتي وحلاق بتالي يرقف كنول marka waxaan isleeyahay marqaatiyaasha Somtel inay iga mid dhigtay aadaan ugu faraxsanahay in dhiirigelin loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed dhaqaalihii shacabka Soomaaliyeed laga qaaday ganacsatada inay dib ugu soo celiyaan waa wax ahmiyad gaar u leh shacabka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay Somtel wax weyn oo wanaagsan ayay sameysay maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u xiiseeyaan ku hadalka taleefanada haddii noqoleed internetka iyo isticmaalka qadka caadiga ah ee localka ama dibadda inay ku noqoto marka wixii laga qaaday arkaan wixii loogu qabtay
iyadoo tan kaliya aysan ahayn ay wax badan ay ka qabtaan wadanka horumarkiisaba waxaan isleeyahay marka maanta waa laga tegay maalintii gacan kale ee dadka u kaalmeynaysay annaga ayaa isku kaalmeynaynaa aadaan idinkaga mahadcelinaa horumarka aad samaynaysaan iyo isbeddelka aad ku wadaan wadanka haddaan nahay maamulka gobolka banaadir anoo codkooda ku hadlaayo aadaan u soo dhawaynaynaa sida qiimaha leh quruxda badan aad cadaaladda aad ugu samayseen sidaan hadda arkayay aniga qayb ka ahaa calafka cajiib waaye qof marka hore ku guulaystay mar labaad inuu ku guulaysto waa calaf ilaahay uu siiyey cid ka qaadanaysa aysan lahayn qof walba wuxuu alla ugu talagalay cid ka qaadanaysa ma lahan arsaaqada iyo wax walba la heli lahaa ama shar hadday noqon lahayd ama kheyr hadday noqon lahayd alla subxaanahu watacaala ayaa qoray aadaan idinkaga mahadcelinaa guulaystayaasha waxaan idin leeyahay nasiib wacan inta aan nasiibka u yeelanin waxaan isleeyahay sanadaha soo socda ayay nasiib u yeelan doonaan hadduu ilaahay yiraahdo waxaan isleeyahay tan ma ahane 10 kun Soomaali waa 20 milyan iyo ka badan marka waxaan isleeyahay 10 kun way ku yartahay hal laga badiyo intaas aniga tala ahaan taasaan soo jeedinaa siday u arkaan dadku uu gaaro waxaan aad ugu mahadcelinaa qof walba gacan ka geystay barnaamijkan ama barnaamijkan in la qabto ay u horeyso shirkadda iyo intii markaas ay la taliyaasheeda ama cid alla cid ay kala tashatay aadaan ugu mahadcelinaa wax wanaagsan oo ku dayasho mudan oo u baahan bulshada inay arkaan in wax la qaban karo dadkana la abaalmarin karo shukran wax weyn waaye aadaan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda inaan u sheego xiliyadan oo kale waa dareemi kartiin social media dad taagan oo wax walba iska soo qorayaan ay dhahayaan ma dhiiqada la qaado gobolka banaadir wuxuu qaban lahaa gobolka banaadir wuxuu qaban lahaa way muuqataa wuu qabtaa laakiin kii bulshada ayaa dhiman bulshada waxa loo baahan yahay maamulkooda inay gacan siiyaan inay garab istaagaan inaa iskaabno roobka ilaahay ayaa keenay wadamada hadda hormaray xiliyadan hadda waxa la taagan meelaha qaarkood biyaha qaaday ayagoo hormaray annaga marka maanta maxaa isleedihiin annagoo og xaaladaha ka soo kabanay maanta meesha aan taaganaa shalay meesha aan taagnayn inaysan ahayn dadaal dheeri la wado adduunka wadamada hormaray ayaa biyo qaaday marka roobka subxaanahu wa ta'ala keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin khayraadku ilaahay nagu munaystay ku mid tahay dadaalka ma reebano bulshada laakiin ay kaalintooda ka qaataan ayaa loo baahan yahay waxaa jiro dad badan oo ku nool degmooyinka gobolka banaadir oo aad u liito oo awoodin maanta bacda biyaha la iskaga dhiga aan awoodin marka waxaan u baahanahay inaan isku kaalmeyno wanaago ilaahayna faray iyo diinteena islaamka inaan kuwaas gacan u celino qof kasta muwaadin Soomaaliyeedna uu wuxuu ilaahay u dhiyo maanta uu baxsado oo bari helaayo marka dadkaas oo kale inaan fiirino xiliyadan roobaadka kaamamka barakacayaasha dad baa ayaa guryahooda ka baxay dadaa dhibaateysan xaalada adag ay ku jiraan annaga maamul gobolka banaadir ahaan kaalinta ugu muhiimsan inaan qaadanayo diyaar u nahay ganacsatada Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay dib u eegis ku sameeyaan dadkaaseti ay ahaato waxay bixinayaan inay ku bixiyaan kan maskiinka aan awoodin aan waxba aan haysan xiliyadan u baahan in loo kaalmeeyo inaan u wada kaalmeyno aan isku naxariisano Allah subxaanahu wa ta'ala ha noo naxariisto aan noqono kuwa isku duuban oo dadkooda og oo dalkooda og oo horumarka iyo dalkaba ka shaqeeya dal qani ayaan leenahay xaaladahan ka soo baxnay alxamdulillah ilaahayna ugu mahadcelino meesha aan u soconana inuu ilaahayna gaarsiiyo anagoo isku duuban oo mideysan oo midnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynayno insha Allah waxaan rajaynaynaa maanta maalin ka fiican inaan gaari doono dalalka adduunka ugu qanisan ku jirnaa laakiin waxaan naga maqan wada jirkii iyo wada joogii iyo walaaltinimadii inaan adkayno taas waan ku gaari doonaa horumar Soomaaliya waa dareemi kartiin xaaladaha ay dalka adduunka waxay ku ahayd maantana way soo kabatay way u sii socotaa meeshaas meel ka sareyso Afrika meesha ugu sareysa ayay ku jirtaa hadda kaalinta shanaad ay ku jirtaa wadamo badan oo hadda horumar isku sheegayaan ayaan ka fiicanahay waxaana gaarsiiyay ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadkeena Soomaaliyeed oo adkeysiga badnaa aadaan idinkaga mahadcelinaa Samtel waxaan ku leeyahay annaga waxaan leenahay maamulkeen hore u socda waa idin garab taaganahay insha Allah wax walba horumarka dalka iyo dadka lagu celinayana dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay 75% isbeddelka waxa muujiya dhalinyarada waxa uu istaagaa dhalinyarada
wax horumarka hadda la haysta sameeya dhalinyaro meeshiina ka sii wada wanaaga ka shaqeeya horumarka ka shaqeeya dib u dhiska dalka ka shaqeeya aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaa cid walbo maanta meeshaan ka soo qayb gashay Senator Muno aan u jeedaa hadda inay timid Senator soo dhawow aadaa idin salaamaa dhammaantiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin gudoomiyaha waa maasan yihiin waxaan codsanaynaa guuleystayaashii bajaajka iyo moobeelada ku guuleystay maadaama aad gobolka banaadir ka tirsan tihiin soo imaada gudoomiyaha sawir la gala dadkii bajaaj leeyahay hadda soo istaagaan labada bajaaj ku guuleystay ha soo istaagaan waxaan ka codsanaynaa jaamac iyo miski inay noo yimaadaan iyagoo raali ah si markaa maamuus ahaan gudoomiyaha ay markhaati ugu noqoto hadiyadaha lagu wareejiyo bajaajyada insha allah walaasheen miski waa yahay waayahay sidoo kale Senator Muna aqalka sare waxaan ka codsanaynaa inay noo soo dhawaato fadlan stage-ka imo marwo maasha allah maanta mas'uuliyiintii dawladda intoodii badnayd barnaamijkeena way nagala soo qayb galeen waa u wada mahadcelinaynaa waana bogaadinaynaa maasha allah waayahay sidoo kale senatarada waxaan fursad u siin doonaa inay generate garayso guuleystayaasha cusub insha allah waayahay senatarada ayaa inoo doortay maasha allah dadweynaha shaashadaas ayay kala socon karaan screenka hortiina yaala waan arki doonaa waayahay way stop garaynaysaa iminka tolow yaa guuleystay lambarku waa 624 maasha allah nambarka waxaan codsanaynaa ustaad axmed inuu inoo wacaaday suuragal tahay fura 449 waaya waayahay wuxuu ku guuleystay Samsung TV iyo receiverkiisa oo isla socda ayaan si toos ah ugu abaalmarin doonaa insha allah wuu mahadsan yahay guuleystaha waqtigu aad inoogu kooban aawadeed sidoo kale waayahay marow basma ayaa si toos ugu wareejinaysa furihii bajaajta gabadha walaasheen miski oo degmada kaxda ka timid kana mid ah macaamiisheena maanta la abaalmarinayo waa gabadhii ugu horeysay ee ku guuleysata bajaaj hambali aan ku leenahay walaasheen miski ha loo sacbiyo miski aan wada dhiirigelino maasha allah bajaajta cad ayay ku guuleysatay marow basmo ayaa abaalmarinaysa maasha allah waayahay qofka xiga waa walaalkeen jaamac degmada hodan ayuu degan yahay waxaa abaalmarinaysa senataradeena senator Muna maasha allah jaamac isna wuxuu ku guuleystay bajaajta cagaarka ah malaha barwaaqo inoo horseedi doonaa soo dhawow aan leenahay ha loo sacbiyo isna maasha allah waad aragtaan mas'uuliyiintii dawladda ayaa marag ka ah dadka aan abaalmarinay waayahay waa maasan yihiin Muno senatarka Muno iyo basmaba labadaba waxay joogeen markii la daafurayay wali basmo waxaa xasuustaa inay habeenkaas qabyaalada soo dhaad waxaan rajeynaa inay degmada inay gobolka banaadir ay ku guuleystaan laakiin wali faro kama qodno baabuurka hoyandaaygi waa dhiman yahay oo hortiina yaallo baabuurka hoyandaaygi waa dhiman yahay marka waxaan noo soo xiri doona senatarta noo soo xiri doonto xalfadana noo xiran doontaa insha allah senatar ku soo dhawow xalfadana noo xir بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka xumaay inaan ka soo daaho anagoo barnaamij kale oo aan ku mashquulsanay inaan jeclaa laakiin inaan goor hore imaado waan ka cudur daaranayaa waxaan leeyahay shirkadda Samtel ma la qiyaasi karaayo gabar intay soo istaagtay isticmaashay ku hanatay inay bajaaj qaadato waxaan u malay horta inay iyadu wadi doonto de rag imika waanu bareejaynaynaa laakiin waa waxaan yani la malaysan karayn
ma habeenkii markaanu tagnay dadaanu sheekaysay waxaan war waa iska hadalay waxaan waa ii dheh weeyaan hadhowtu wax la bixinaya ma jirto qofkii sidaa lahaayoo maanta goobjoog waxaan waay furihiin gacanta laga saaray haddii gaadhiga lagu guulaystana gacanta laga saarayo haddii qasaalad lagu guulaystana gacanta laga saarayo isticmaal samtel mar kasta samtelna waxaan leeyahay idinkuna waxaad ogaataan barakacayaasha siday walaashii basma sheegtay dad badan baa hoosteenna ku dhibaataysan habeenkii intaynu inagu meel dugsoon ku jirno dad baa meel dhaxan iyo roob ku jira kuwaa qudhooda yaan loo daymo la-aan hoos ha loo eego ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idiin barakeeyo إلهي وحنا كبر يا إن دون مال سريك قاعدان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتك يروبك يو عمل هذا درت بنشعلنا أنت وقصوك بجبي ودنا سنتي ويا هاي السنة رد أدي يوم حسن تهاي دتك الأبال مريي ودتك جوليستي تضبط كي هراء أو أنا أبال مريناي دتك كشوف تلحي تمنك جولاي لا يهدا ويا هاي دتك أنا أبال مريناي dadka guulaysan doona toddobaadkan oo ka bilaabanaya maanta 23ka next week ayaan abaalmarin doona toddobaadka xiga dadka sida tooska live-ka ula socda ama tabinta tooska ee TV-yada waxaan ogeysiinaynaa dadka la abaalmariyo waa dadkii guulaystay toddobaadkii hore dadka guulaysanaya toddobaadkan waxaan abaalmarin doonaa jimcaha soo socda hadduu alla idmo iminkana qaar kamid ah guulaystayaasha ayaan insha Allah taala abaalmarin doonaa hadiyadaha kala gedisan dabcan ay noo harsan waana soo koobeena insha Allah taala وياهي دادر معلن شيرار دادر معلن شيرار قوليسته وياهي وحوكو قوليستي دلو رسيفر iyo anteenadeeda iswata daadir macalin shiiraar hadii uu joogo waan abaalmarinayna insha Allah taala daadir waxaan leenahay soo dhawo walaalkeen ma sha Allah waa wiilkan aad ku daadayar hambal yaan leenahay daadirow وياهي وابالمرينينا ولالكن احمد عبد الرحمن قدونسينا ان شاء الله مع الرسيفر كواكن سودو علينا آذن محمد عبد الله مع ملك حقا ولا الآذن هو هدارنا مقليسو فضلا الستيج كي موسيان كوا بالمرينو waxaad ku guuleysatayna halkan ayaan uga dhawaaqaynaa waxaan u mahad celinayaa warbaahinta sida tooska u sameynaysa live-ka Astaan TV Shabeelle TV Dalsan TV sidoo kale waxaan abaalmarinaynaa aadan wuxuu ku guuleystay laptop ma sha Allah soo dhaw aadan hambal yaan ku leenahay saaxiib waa kan laptopkii ay shirkadda Somtel kuugu tala gashay soo dhaw ma sha Allah waa laptopka aad ku quruxda badan HP aad aragtaan يا سلام ولكن هذا نصيب بدنياي وفرشن كي وجودن بيسوق ليتستي فرشن يا الله صح حلي لبكم كوي لواتن هم بليان كلنا ساعد ما شاء الله سودو سمسم أحمد حرسي قبل ولاشين زمزم أحمد حرسي عدينا مخلصه إنه قف إذا وقت قاعد إنه كوبنا بديت زمزم أحمد حرسي صمتل والملاها طبعا كونوا هديه دود زكريا سليمان محمد ولا زكريا سليمان محمد هذا مقليسو زمزمنا waxay ku guuleysatay mobilkan ma sha Allah hambalyan leenahay Ahmed ayaa inoo gudonsiin Ahmed gudonsi ma sha Allah Ahmed Fargab waya walaashin zamzam soo dhawow maanta waxaad moodaa habluhu inay guuleysanayaan si gaar ah waana maanaynaa waya zamzamay hambalyan nasiib waxaan ku leenahay toddobaadka xiga wiilal badan ayaa baratami doona insha Allah Zakariya Saleyman ninka odayga soo socda inuu yahay filaya Zakariya Saleyman ما شاء الله وحكوا قولستي دقوا وايرلس أي صمتل وقلت لك شامبلي عن لينهاي زكريا يا رويل كانت كودا دير همبلي عذر ما شاء الله سودو دقانا يوم قلت لك قلناي إن شاء الله واحد كل جسم دون تعدوا الله يدنا سبحانه قدون وهي هاي هديدين هذا يوفر بديهين أنت هذا أركتان وسمبل كم إذا أنت كلنا إن شاء الله برتين فيسبوك صمتل سومالي يورباهين تواتكو أركي دونتان أنت لو جود جرو تضبط كأنا بالمرين دونا إن شاء الله ددوينا هرسن عبد الرحمن عبد حسين وكوكو ليستي غسالة إسقى يا أكسو حرينا إن شاء الله تعالى عبد الرحمن عبد حسين هدونا مقلة يا عبد الرحمن عبد حسين وقتك لما دافان كان الجوجا إسقى وقدم به إن شاء الله تعالى ما شاء الله سودو صاحب همبليو
waan soo xiranaynaa insha allah waayahay hambalyaan ku leenahay waayahay hambalyo maasha allah waa kan waayahay hambalyaan leenahay inta ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeenii maanta aan ku abaalmarinaynay macaamiisha kala gedisan waa 23 bishii July 2021 inta ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii tan iyo kulanti dambe toddobaadka xiga maalinta jimcaha waxaa idinkaga tegaynaa nawaadiina nooli kulanti amaana allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan u wada tartanna toddobaadka xiga si aad ugu guulaysataan qayb ka mid ah 10,000 oo hadiyadood السلام عليكم كسو دواده هربت وهيغا تبارك انجينيرada mustaqbalka aad ka bari kartay cilmiga kombiyuutarka qaybihiisa kala duwan adoo jooga goob kasta iyo goor kasta waxaana naga soo booqan kartaa hurbet.com maanta koorsadana waxay ku saabsan tahay Facebook marketing aniga adiguba waxay u badan tahay maalin kasta inaan Facebook isticmaalno balse waxaan u isticmaalnaaba waxay tahay si personal ah u isticmaalnaa si shakhsiyad ahaan u isticmaalnaa oo uma isticmaalno si business ahaan Facebook marka laba waji uu leeyahay waji oo shakhsiyad iyo waji ganacsi ayuu leeyahay marka waxaan arki doonaaba waxay tahay inaan cashirkan iyo koorsadan crash course-ga aan ku baran doono business site-ka oo Facebook oo wajiga business-ka uu leeyahay Facebook haddaan aniga adigu hadirtaan slide-ka aan isla fiirino